fudud ugu mid noqo Wilson free signals adigoo aan wax lacag bixin hel maalin walba signal free ah kana sameey Forex lacag badan adigoo aan wax lacag ka bixin linkiga waxaan ku soo dhigi doonaa description-ka iyo comment-iga ugu horeeya ee muuqaalkan kulantu waxaan wanaagsan daawadayaal meel walba dunida ka joogtaan halkani waa Mira Show cashirkeena mise mowduuceena maanta wuxuu ku saabsan yahay qaabka la iska register gareeyo brokerka loo yaqaan ICM Capital oo laga leeyahay dalka Ingiriiska ama UK. ugu horeyn mobilkaaga qabso waxaad tagtaa Google mise Chrome kadib waxaad ku qortaa ICM Capital kadib bog ugu horeeyo ku soo saaro ayaad click sii doontaa. haatan waxaan gudaha u galnaa ICM Capital website-keeda kadib waxaan ku dhufan doonaa ama aan dooran doonaa halka ay ku qoran tahay open real account kadibna waxaad ka sii doorataa halka ay ku qoran tahay registration oo ah account cusub aan abuurto. halkaana waxaad gelgeli doontaa information-kaaga gaarka ah halka ugu horeysa oo ah title waxaad geli doontaa haddii aad tahay nin rag ah master oo ugu horeeyo qaybtaani ka hooseysan waxaad geli doontaa magacaaga ugu magacaada saxda ah haddii aadan u isticmaalin information-kaaga akoonkaaga lama aqbali doono mana noqon doono mid real ah oo shaqeeyo oo lacag laga sameeyo. u isticmaal magacaaga saxda ah oo aad u isticmaasho bangiyada sidoo kale national ID-ga ama baasaboorka ayuu nooc inta ID haysatid ama ID hadaadan haysan magacaada saxda ah u isticmaal akoonkani mise information-kani ugu horeeyo. ugu dambeyn waxaan geliyay Gmail-kayga waxaan geliyay password cusub aan u sameystay akoonkani mar walba aan akoonkani soo galayo ama aan lacag dhiganayo mise aan lacag kala baxayo password-kan ku soo gali lahay waan sameeyay all waa u jeedaa waan buuxiyay information-ka waa complete kadib waxaan dhihi doonaa finish waxaan ka gudbi doonaa I am not robot oo ah waxaa la xaqiijinayaa inaad tahay qof bani aadan ah kadib finish it. akoonkani hadda sidaas waan ku abuuray. haatanna waxaa ku dhiman information-ka aad trade-ka ku gali lahayd ama information-ka muhiimka ah. step 2 waxaan gali doonaa qaybta setting-ga ama qaybta aan hadda falaarta ku saaray hagaag kadib waxaan ku dhufan doonaa open live account. sidoo kale halkani waxaad geli doontaa information-kaaga qaybta ugu horeysa oo ah birth date oo micnaheedu ay tahay taariikhda aad dhalatay. qaybta ku xigtana waa postal code waxaad geli doontaa postal code-ka 252. qaybta kaleeto oo ah address line 1 waxaad gelinaysaa degmada aad ku nooshahay. midka ka hooseeya oo ah xaafadda aad kaga nooshahay degmadaasi. qaybta hoose city waxaad geli doontaa magaalada ku nooshahay. qaybta ka hooseysan waxaa lagu yiri imisa sano aad magaaladan ku nooshahay waxaad dhihi doontaa longer than 2 years 2 sano ka badan. okay nationality qaybta ugu hooseysa waxaad geli doontaa address-kani wadanku uu quseeyo waxaan geli doonaa Soomaaliya. ugu dambeyn waxaan xaqiijin doonaa inaan ahay bani aadan kadib waxaan dhihi doonaa finish. waxaa wax laga weydiin doonaa ganacsigani fadlan sidaa aniga u buuxiyo sidaa la mid ah u buuxi. dhammaan waan soo buuxinay. halkani waa halka muhiimka ah trading account details. halkani waa halka muhiimka ah trading platform waxaad ka dhigataa MetaTrader 4 MT4 aad ka heli kartid Play Store-ka. account tab waxaad geli doontaa ICM0 sababtoo ah spreadkiisu weeryahay wax commission ah kuma saaranayo. waxaa ku wanaagsan haddii aad tahay qof hadda Forex bilaabayo aan rabin wax riba ah waxaad
ka dhigataa ICM0. akoonkaaga dhaqso ah ama si dhaqso ah ayuu kuugu soo korayaa. ICM0 ka dhigo. halkani waxaad gelinaysaa expect oo ah lacagta aad rajeynaysid in aad forex dhigato. bilow ma aha. haddii aad bilow tahay waxaad ka dhigi kartaa $1,500,000, $50, $200, inta aad jeceshahay halkani waad ka dhigi kartaa. midda ka hooseysa ee lacagta ay ku qoran tahay waxaad ka dhigataa USD oo doolarka ah, sababtoo ah haddii aad halkaasi qalado ogow lacagta aad forex dhiganayso waxay noqon doontaa euro ama lacag kaleeto. marka waxaa qasab ah inaad ka dhigatid doolar. okay, marketing information waxaad geli doontaa halka ay ku qoran tahay order, kadib lambarka aan gelinayo meel ku qoro, lambarkaasi gasho marka aad sameysanaysid. haatan wax walba waan dhameynay, akoonkii waan sameysanay, kadib waxaan dhihi doonaa finish. okay, haddeertaan xogteedu dhammaystiran sida saxdeed ayaan u geliyey. waxaan sii doori doonaa halka aan hadda calaamada kuu saaray. halkani markaad timaado waxaa lagaaga baahan yahay inaad haysatid ID card, Swift code iyo proof address oo ku cad xaafadda aad degan tahay. halkan addresska aad gelisay waa inay ku qornaataa warqadaasi proof addresska. magacaada oo saddexan waa inay ku qornaataa magacaad u isticmaashay halkani. ogow haddii ay wax ka qaldamaan laguma soo aqbali doono. waa xogta inta aad gelisay waa inay ku qornaataa xogtay ama dukumentigaaga xogta ku qoran. ID card waxaa u isticmaali kartaa kaarka dhalashada mise warqadda dhalashada ee bixiso dowladda hoose. sidoo kaleeto proof address iyo Swift code waxaad ka heli kartaa bangiyada Premier Bank mise IBS. waxaad dhehaysaa akoon cusub ii furo, markay kuu furaan waxaad dhehaysaa warqadda Swift codeka ii daawaca, kadibna waxaad kasii daawacanaysaa warqad proof address ah. waa xogta inay ku qornaadaan xogta aad halkan gelisay iyo xogta warqadaas ku qoran waa inay islahaadaan. kadib si dhaqso ah 24 saac kadib waa lagu soo aqbali doonaa. waa mahadsan tahay. haddii aad cashirkan ka faa'iido fadlan muuqaalka saar, kusoo biir telegramka groupka. waxaan kuu soo dhigi doonaa linkiga commenti ugu horeeyay descriptionka. kusoo biir si aan kuu fahamsiino forex si aad mustaqbalkaaga ugu samaysid halkaasi. waa ganacsi online ah oo adduunka ka jiro. waa mahadsan tahay. soo dhowow.